agaasimayaasha aqoon-yahanada qalinleyda culimada bahda warbaahinta marti sharafta kala duwan iyo dhammaan xubnaha wasaaradda. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maanta waxaan isugu nimi in aan ka hortagno caqabad weyn oo saameyn ku leh dadkeenna iyo dalkeenna, taas oo ah bal inaan xakamayno faafinta wararka been abuurka iyo saameynta taban ee ay bulshadeenna ku leeyihiin. faafinta wararka been abuurka waxay khatar weyn ku tahay amniga qaranka, nabadgelyadeenna iyo wadajirkeenna intaba. weliba waxaynu nahay bulsho nugul oo ka soo kabanaysa duruuf adag oo ay muddo dheer kusoo dhex jirtay, taasoo si sahlan loo qaadsiin karo cudurka dilaaga ah ee been abuurka. wararka khaldan ee been abuurka ah, gaar ahaan marka ay faafinayaan argagixisada khawaarijta iyo kuwa la midka ahi, waxay noqon karaan hub khatar ah oo wax burburiya. marka la baahiyo warar ama muuqaallo been abuura, bulshadeennuna isticmaasho wararkaas aan la faafreebin, waxaan si aan ku talagal ahayn u noqonaynaa wakiilada rakhiiska ah ee argagixisada iyo cid walba oo rabta in ay sumcad disho dalkeenna iyo dadkeenna intaba. mudanayaal iyo marweyn, xeerka saxaafadda caalamiga ah wuxuu dhigayaa in marka warfidiyaanku helo warka, inta uusan faafin uu la xiriiro dhinacyada ay khusayso dhacdadaas ama warkaas, iyo weliba dhinacyo kale oo aan iyagu aan qayb ka ahayn dhacdadaas, si uu u hubsado waxa uu ka soo saari doono ama riboodka uu ka qori doono. waxaa la yidhaahdaa inta aad noqon lahayd ruuxa ugu horeeya ee been faafiya, noqo ruuxa ugu dambeeya ee runta baahiya. waxaan dhammaantiin idinku boorinayaa in aad ka hortagtaan wararka sida xun ee been abuurka ah loogu faafiyo baraha bulshada iyo mareegaha kale ee ay bulshadu isticmaasho. dagaalkani sida uu hadda wasiirkuba sheegay ma aha mid ay ku filan tahay dowladda keligeed ama xukuumaddu. waxay u baahan tahay dadaal wadajir ah oo qof kasta, qoys kasta iyo cid walba oo bulshadeenna ka mid ah. diinteenna islaamku horay ayay inoogu sheegtay khatarta ay leedahay wararka ay la faafinayo ee been abuurka ah. waxaa si dhib yar loo soo qaadan karaa xaadithada weyn ama dhacdada weyn ee qoyskii nabiga calayhi salaatu wasalaam lala beegsaday oo loo yaqaano xadiithul ifkiga, oo ilaahay uu sheegay inay aad khatar u tahay warka aan la hubin sheegintiisa, isagoo ilaahay inoo sheegay id talaqawnahu bialsinatikum wataquuluuna biafwaahikum maa laysa lakum bihi cilm wataxsabuunahu hayinan wahuwa cinda allaahi cadiim. waxaad u malaynaysaan wax fudud, laakiin ilaahay agtiisa aad buu uga weyn yahay. dhallinyaradeenna oo ah mustaqbalka ummaddeenna, waxaan ku boorinayaa inay si xilkasnimo leh u isticmaalaan guud ahaan internetka, gaar ahaanna baraha bulshada. xirfadleyda warbaahinta waxaan sidoo kale ku boorinayaa inay ilaaliyaan anshaxa iyo halbeegyada saxaafadda iyo hubinta macluumaadka ka hor inta aysan daabicin
oo aysan bulshada la wadaagin waxaan sidoo kale ka codsanayaa culimadeena sharafta leh in ay ummadda ka baraarujiyaan baahinta wararka been abuurka ah ee lagu faafiyo baraha bulshada iyo warbaahinta qaybaheeda kala duwan sida uu haddaba sheekhu inoo akhrinayay ilaahay qur-aanka wuxuu inagu faray in aan mar walba runta aan ku dadaalo yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha wakunuu maca asaadiqiin yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha waquluu qowlan sadiida dhanka dowladda waxaan qaadi doonaa tallaabooyin looga hortagayo laguna baahinayo macluumaadka laguna hubinayo macluumaadka gaar ahaanna wararka khuseeya amniga qaranka waxaan la shaqayn doonaa shirkadaha bixiya adeega internetka si aan u hirgelinno habab lagu ogaado oo meesha looga saaro wararka been abuurka ah ee wax u dhimaya amniga iyo nabadgelyada dalka iyo dadka intaba tillaabooyin sharci ah ayaa laga qaadi doonaa shakhsiyaadka ama kooxaha lagu helo in ay si ula kac ah u faafinayaan wararka been abuurka ah taasoo abuuraysa carqalad iyo amni darro ama kala qaybinaysa bulshadeenna shirweynaha aragti wadaagga ee xakamaynta faafinta wararka been abuurka ah iyo saamaynta taban ee ay bulshada ku leeyihiin waa bilowga dadaalka xukuumadda ee ku aadan xakamaynta faafinta wararka khaldan ee been abuurka ah ma noqon doono markii ugu dambeeyey shirkani ama kii ugu dambeeyey ee arrintan khuseeya xukuumadda dan qaran waxaa ka go-an in ay si toos ah iyo si dadbanba ula diriirto wararka been abuurka ah ee bulshadeenna lagu dhex faafinayo mudanayaal iyo marwooyin walaalayaal waxaa isweydiin leh maxaa keena ama motivate gareeya wararka been abuurka ah sida la sheegay wararka been abuurka ah ee bulshada lagu baahiyo ma aha caqabad Soomaaliya oo kaliya haysata ee waa mid caalamka oo dhan haysata waa mid ay la timid warbaahinta qaybaheeda kala duwan iyo tiknoolajiyada haddii wax lagu fududeeyo laakiin aadan yeelan mas'uuliyadda qaadi karta waxaas lagu fududeeyay dhinac baad u ciiraysaa waxaynu noqonayaa inaad dhinaca liita u ciirto waxaan mar walba ku soo celinayaa oo ku adkeynayaa dhalinyaradeenna in ay dhinaca wanaagsan u isticmaalaan tiknoolajiyadda asbaabta keenaysa inta faraha badan markii Soomaaliya loo soo laabto mid ka mid ah waxaaba dhici karta inuu yahay shaqo abuurasho oo ay dadkeenu shaqo ku abuuranayaan xaq bayna u leeyihiin inuu qofku wax xalaal ah inuu abuurto oo uu shaqo ka helo xaq buu leeyahay in fara badan oo kamid ah si wanaagsan ayay u isticmaalaan si wanaagsan ayayna businesskaas uga shaqeystaan in badan oo kamid ah waxay ka qayb qaataan toosinta bulshada iyo u adeegidda dadkeena oo waxyaabooyin muhiim ah ayay ugu qabtaan oo bulshada lagu taageero oo markii ay u baahan tahay cidii kaalmo u baahan sida abaaraha oo kale qayb weyn bay ka geystaan la dagaalanka khawaarijta ayay in badan oo kamid ah qayb weyn ka geystaan isu doonka dadka Soomaaliyeed ee kala dhumay iyo isu raadintooda ay qayb weyn ka geystaan wacyigelinta dhalinyarada ee inay wax bartaan oo ay xumaanta ka haraan oo draaga iyo mukhadaraadka ka haraan ayay wax weyn ka geystaan dhammaantood waan uga mahadcelinayaa waxaan leeyahay waa mahadsantihiin shaqo weyn baad qabateen ha yeeshee waxaa mar walba jira wax walba deviation buu leeyahay qayb dhinac uga baxday ayaa jirta oo aan badnayn oo tiro yar
oo ayaguna ay yaqaanaan inta wanaagsani ay aad u garanayaan oo waliba ay dhibsadaan oo xishoodkii ka tagay oo dhibaato fara badan galay oo lafahoodana halaagay bulshadoodana halaagaya mustaqbalkoodiina burburinaya ayaa jira kuwaasi waxay inooga baahan yihiin inaan dhammaanteen aan badbaadino dhammaanteen inaan la hadallo dhallinyaradeenna waxaa waajib ka saaran yahay dhallinyaradeenna waa wanaagsan inay u gurmadaan walaalahood in qofka markii uu wax xun uu samaynayo beelaha isku dirayo waxyaaba aan anshaxa ku wanaagsanayn uu samaynayo haddana uu codsanayo in loo sheergareeyo oo view dadka codsanayo waxaan dadkeenna dhammaantood waxgaradka ah oo ay ugu horeeyaan dhallinyarada inta faraha badan bulshada isticmaasha yani qofka ha ku sii fogeynina mashaakilka ha ku fogeynina haddaad u sheergarayso waxaad ogaataa inaad dembiga qayb ku yeelanayso maxaa jira encouragement baa usii samaynaysaa inuu haddana sii wado oo deedna muuqaalkii mid ka foolxun uu berri la yimaado laakiin haddaad halkaas ku joojiso ama aad gebigiisaba iska dhiliid garayso aad iska bologarayso wuxuu dareemayaa qofkani in ay bulshadu diiday oo ka soo horjeedo sidaa darteed waa kan bulshooyinku qaybsanee la qaybiyo bulshooyinka qaar waxaa jira ka tallaalan waxyaabaha noocaasa inay obsergareeyaan oo cabbaan ka tallaalan baa jira waa bulshooyinka aqoonta leh ee dhisan waxyaabaha noocaasa ma dhegaystaan sidaa darteed qofku share iyo viewtona kama heli karo maxaa jira timekooda muhiim ah qofna wakhtigiisa kuma khasaarinayo waxa noocaas oo kale inuu ama fiirsado ama u dhegaysto kuma khasaarinayo timekoodu muxuu leeyahay timekooda inay ka faa'iidaystaan marka meeshii uu kaga bixin lahaa 1 minute wuxuu ku bixinayaa inuu mid kale oo professor ah oo wax ka faa'iidaysanayo dhakhtar wax ka faa'iidaysanayo business wax ka faa'iidaysanayo entertainment even la garan karo oo wax ka faa'iidaysanayo oo uu ku nasto ayuu raadsanaa laakiin qof waalan waxa dhagaysto bulshada dhimatay oo sakaraadka markay bulshada uu gaaban yahay aqoonteedu markay bulshada ay la nooshahay qiila wal qaal levelkaas markay taagan tahay waxay u nugushahay in shayaadiintu ka haysato ayay u nugushahay sidaa darteed kuwaasi waa qayb ka mid ah ay shayaadiintu inaga ka haysantay marka inaga shayaadiinta isku haysanna waa inaan shayaadiinta ka soo qaadanno ee ma aha ayagii inaan customer u noqono lilasaf in ayagii customers loo noqdo ma aha marka waxaan u baahannahay inaan badbaadinno dhallinyaradeenna oon ka badbaadinno dhaqanka xun daraaga kuwaan ka qabanayno in habeen walba ku soo qabanno ee aynu waaninno iyo midka bunaaxinaya habeen iyo maalin intuu meel soo fadhiisto daduu isku diro daduu caayo qofuuna ka xishoonin gabdhihii oo lacaynayo xishood la'aan meel kasta loo soo fadhiistay waxaa waaye kadraaga iyo kadraaga keligiis buu meel ku cabaya meel buuba keligii la galay asagun baa isgubayeen kani ummaddii buu gubaya asna waa isgubaya kanaa ka sii dara marka waxaynu u baahannahay shirkan qaran waan soo dhawaynayaa aad iyo aad baan ugu hambalyaynayaa wasaaradda waxaan laakiin ka codsanaynaa bulshadeennu inay ku baraarugto arrinta khatarsanideeda iyo siday serious u tahay runtii ama wax la dhayalsan kara aysan u ahayn marka risqiga ilaahay meel khayr leh inoo geliyo meeshaas qofka risqigu ka galay meel xun buu ka galay marka waxaan ka shaqaynaynaa inaynu dhallinyaradeenna u helno risqi xalaal ah oo ka shaqaystaan oo ay noloshooda iyo biilkooda ay ka helaan si aynan waxaas aysan wax ugu doonan laakiin gurmad bay inooga baahan yihin dhallinyarada sharafta leh ee soomaaliyeed ee qiimaha badan waxaan mar kale ku celinayaa oon ka codsanayaa walaalahood inay u gurmadaan in la waaniyo intanaad joogtaan maanta haddii aad kulligiin intaanoo dhallinyaro ah oo meeshaan fadhisa iyo intay dhegaysanaysa iyo intay daawan doonta haddii mid waliba uu qoro article yar oo 5 pages ka kooban ama passage yar oo uu walaalkiis ku waani la yidhaahdo walaalka waani la yidhaahdo
oo ay hashtag laga sameeyo oo la iswada gaarsiiyo waxa weeye waxay noqonaysaa arrin wax weyn soo kordhista oo dhallinyaradeenna ka hor istaagi karta musiibadan iyo dhibaatadan haysata iyo aafadan ay ku dhex jiraan siyaasiyiinta sometimes qayb weyn ay ka qaataan mushkilada haddiiba qofkii siyaasiga ahaa si u sii socday uu marka dambe gaaro inuu lacag ku bixiyay ammaan ama uu lacag ku bixiyay hebel ii cay waxay motivate gareeyeen oo ay abuureen mushkiladii ugu weyneed ay abuureen dhaqan waxaa la sameeyey aad u foolxun oo ay siyaasiyiintu mas-uul ka yihiin taasoo dhallinyaradii kaga tagtay in haddii aadan lacag siinin waa ku caay haddii aadan xoolo siinin waxaa weeye waxaan kusoo fadhiisanayaa meel deedna waxaad tahay waxaadan haynba waan ku akhrinayaa markay le adeer waxa igu samayna lacag baan kusoo diraya dhaqankaas waxaa baray siyaasiyiinta bartay siyaasi la dagaalamaya dhaqankii ugu xumaa dhaqanka ugu liitay ee dowladdeena laga bartay ee musiibada ah ee dhallinyaradeenna aan ku dhiminay dhaqankaas waa dowladda waxaa laga rabaa inay akhlaaqda barto xiraasatu diin wa siyaasatu dunya qofka madaxda waxaa laga rabaa dadka inuu diintooda u ilaaliyo dadka inuu akhlaaqdooda u ilaaliyo iimaankooda inuu ilaaliyo laakiin lagama rabo inuu dadka akhlaaqdooda ka fasahadiyo iimaankooda ka fasahadiyo dhaqankooda inuu ka fasahadiyo lagama rabo laakiin haddaan anigoo prime ministerkii aan maalin walba taagnahay hebelow waagside maadan iisoo dhigin dee waxba maadan aragay hebel ma caayaysidee hebel ma jiijiidaysid hebel waxba kama samaynaysid dee qofka see buu u ekaanaya bulshadaan abuuraya say u noqonaysaa say u ekaanaysaa waxaan ku boorinayaa oon kula talinayaa dadka mas-uuliyiinta ah inay waxaa iska ilaaliyaan dhaqan waayahan soo jiray waaye oo fool xun oo aada u qaabdaran markii dambe waxaaba laga yaabaa in loo gudbo in company kale uu adeegsado businesskii laftiisu inuu iskalo marka dhaqamada noocaas oo kale ah xilka iyo mulkiga ilaahay baa bixiya ilaahay baana qaada ilaahay baana qur-aankiisa ku caddeeyey oo ku sheegay qofkuu rabana isagaa saara qofkuu rabana isagaa ka dejiya goortuu rabuu saaraya goortuu rabana uu ka dejinaya marka in walaalkaa la caayo shacabkaaga inaad burburiso isku xilkii shacabka inuu burburo inaad isku dirto in aad isugu dhiibto inaad dhallinyaradii dhaqanka ka xumayso inaad dhahdo hebel cay anna isoo ammaan xil laguma joogo xilli loogama tago annagu meeshii aan dhihi lahayn dadna soo cay maxaa hebel ii cay ama ani isoo ammaan inaad aniga caydaa iiga run waxaad rabta igu samee waxaan ahayn baan ahaanaya wax dhiba ma jiro bal iska dembi badannahay wax badan baa naga tegayo waaba noo shaqaynaysa waa la isu shaqaynayaa annagaana nimidoo meeshii dadka lagu qojoqojoyn jiray qofkii maxaa la yidhi durbaan garaaca ilaaq dalbayso maaha meeshan haddaad soo fadhiisato nebi maxamed baa faka waaye saaxirun kadaab ya saaxirun kadaab ummad haddaad soo hor istaagto in fara badanna ilaahay waa kuu sakhirayaa oo waxaa weeye dee wixii wanaagsan bay kugula shaqaynayaan waxa xunna way kaa celinayaan si asluub leh in kale oo dhib badanna way iskaga jirtaay oo ayagu dee cayda uun shaqow ah marka annagu ma dhibsanayno laakiin waxaan ballan qaadaynaa oon anigu ballan qaadaya inaanan xoolo ku bixinayn anigay ammaan hebel nacay robagandadaas marka inaan ka hortagnaa rabna waa inaan ka hortagnaa robagandadaas musiibadaas inaan ka hortagnaan rabnaa akhlaaq inaan isugu yeedhnaan rabnaa inaan wanaag iska baranaan rabnaa inaan isku baranaan rabnaa wanaaggaas inaan isugu yeernaan rabnaa laakiin inaan mushkilada noocaas isugu yeeranno waxaa waaye oy mas-uuliyiinta ka timaado oo ayaan darro weyn bay ahayd
waddankaana waa ka jirtaa horeyna waa u soo dhacday dhaqan bay noqotay dhallinyaradeenniba marka dhaqankii waxay ku reflect garaysay waxaad idinku iga ogtihiin aniga marka waxaan rabaa inaad ka doodaan oo deedna aad aragtiyo aad isku weydaarsataan oo ugu dambaysta arrintaas sidii lagu xallin lahaa inaad keentaan idinkuna weliba xallisaan wayna sahlan tahay dhallinyaradeenna awoodda ugu weyn dhallinyaradeenna leh dhallinyaradeenna ha lagu baraarujiyo inay waxaa ka hortagaan wax badan oo laga faa'iidaysto ayay leedahay aalada internetka iyo social media halkaas aan aadno aan ku tartanno inoo soo raadiya wax kaloon lacag ku bixinno oo bulshada wax u taraya oo ay dhallinyaradeenna ku tartamaan oo aan hebel cay ahayn khawaarijta iyo la dagaalankeeda waxaan wasaaradda farayaa inay soo innovate gareeyaan oo noo keenaan hab dhallinyaradeennu ay ugu tartanto inay nimankaas dadka ka wacyigeliyaan oo meeshaa la aado oon meeshaa lacag ku bixin haddaan rabno meeshaasaan ku bixinno maxaa jira waa qayb ka mida jihaadka lagula jiro kuwaas marka dhallinyaradeenna aan halkaas shaqo ugu abuurno waxay meesha xun lagu siin lahaa waxa fiican aan ku siino dhinacaasa aadaan ayaguna halkaasa aadeen qabyaaladda dhallinyarada kuwa qabyaala diidka ah ha la motivate gareeyo motivation ha la siiyo ee qabyaaladda ka soo horjeeda ee nabadda iyo soomaalinimada iyo muslimnimada iyo walaalaynta dadka kuwa ka shaqaynaya kuwaasaan waxaa rabnaa in loo bedelo dhinacii xumaa ee la aadsiin jiray resourceka in kuwaas la aadsiiyaan rabna marka inay wasaaraddu qorshe ka keento ayaan faraynaa oo arrintaas ka shaqayso walaalayaal wakhti adagaan ku jirnaa waxaan ugu wada jiri karnaa wakhtigaas aan ku dhaafi karnaa aan kaga gudbi karnaa midnimo waxaan kaga gudbi karnaa wada tashi waxaan kaga gudbi karnaa wada shaqayn waa la isdhaliili karaa dhaliishu waa muhiim xukuumadda waa la dhaliili karaa dhaliishuna waa muhiim waan ku soo celinayaa aaday muhiim u tahay maxaa jira haddaan la isdhaliilin de alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar meesha uu ka baxaya laakiin see la isu dhaliilaa waxaan rabnaa si kasta oo annaga uu nagu eg laakiin aan bulshadeenna isku dirayn aan problemka abuurayn oo aan fake news ahayn ee xaqiiqo ah in nalagu naqdiyo nalagu criticize gareeyo diyaaraan u nahay waa soo dhaweynaynaa weliba dadkaas aad baan u jeclahay qofka inuu sheego hadduu corruption jiro inuu kor istaago si cad oo aan gagabasho lahayn haddii gaabis uu jiro oo annaga aan gaabinayno inuu sheego waxaa waaye waa waxyaabaha ugu fiican si cad u sheego bulshada u sheego waan arkaynaa waa ka faa'iidaysanaynaa hadduu gaarna u keenana kaba sii fiican laakiin markaad wax sheegto ama wax qorto oo wax qaldan oo aad aragto oo la hubo oo run aad qorto waxaad ogaataa waxaas wuuna soo gaaraa waana ka faa'iidaysanaynaa intaan kari karaan fulinaynaa u qaadan mayno in annaka nalagu caynayo u qaadan mayno in mushkiladna lagu abuurayo u qaadan mayno waxaan u qaadanaynaa inay tahay qayb alamru bilmacruuf ah wanahyi can ilmunkar inay tahay aan u qaadanaynaa laakiin markay been tahay oo been cad ay tahay oo dee wixii aad aragteen waxba ka jirin qofkii sheegayey saaxiibka ahaa unbay qiimihiisa hoos u dhigaysaa agtaadu qofkii uu kaa qiimo dhacayaa qof baad ka khasaaraysaa anyway qof qaali ahaa yaad khasaari maxaa jira haddaan been kuu sheego waad iga tegaysaa shir kuma jiro haddaan maanta been cad kuu sheego dee wax dambeen kuu sheegaana beenunba iska noqonaya marka waxaan kusoo gabagabaynayaa dalkan soomaaliya dhibaato fara badan buu soo maray dhib aad badan buu soo maray xukuumado badan baa la soo dhisay madax fara badan baa soo martay meelo fog baa laga yimid wax badan baa la soo qabtay laakiin waxaa jira meelo malkooyina
oo geelu ka dido geelu markuu dido meel la marinayo suuriya ama malko laga dhaadhicinayo uu soo istaago waa wax dhib badan bilaash geelu meeshaas kuma maro bilaash kuma marayo wuxuu u baahan yahay in la helo hal neef geela ama riti dheh ama hal weyn dheh oo inta la isugu tago la riixo oo dabada la riixo meesha la marsiiyo marka dambe geelu uu soo maro ayuu u baahan yahay meelo waxaa jira dalkeenan malkooyin ah oo la mari waayo oo dhib badan oo sidii mas'uulku u soo ordayo meesha kor fadhiisto deedna uu iska kor fadhiyo intuu kor fadhiyo deedna uu ka tago meelahaas aan isku daynaa annaga inaan isku tuuro sometimes waxaa dhici karta aan qaldanno waxaa dhici karta inaan qalad laakiin halka waxaan anigu ku qanacsanahay waxaa weeye 100% haddaan la helin in malkadaas la isku tuuro oo la maro inaan meel la gaarin maxaa jira meesha rays kale ee doog gale webigaan dhinaciisa kale ku yaala ay ku taala waan hubnaa inay ku taalo kulligeena waan ognahay marka haddaan anigu meesha iska fadhiyo de waxaad ogaataa adna berri halkiin baad imaan doontaa aan na fadhiyey adna waad fadhin mid kale haddana imaanaya deedna waynu 50 jirsan waynu 60 jirsan waynu 100 sano jirsan kadibna waa la iska keen qabsan baa dil rabo waxaynu u baahannahay marka cid malkada isku tuurta haddii webiga shabeelle ula tagana dee waa allahu naxariisto haddii ilaahay ka gudbiyana dee baril ammaankiibuu dadka waa lagu soo daysanaya waa la soo maraya laakiin fulaynimada iyo meeshaas in dabada la meermeeriyo oo aan la dhaqaaqin waddankan way soo dilootay marka waxaan leenahay annaka waa isku tuuraynaa isku soo tuura meesha hal isku soo tuuro waxaan u baahannahay level of risk inaan qaadanaan u baahannahay waddan kastoo burburay Rwanda madaxdoodaan aragnay waa la sheekaysanay hal maalin ayay wixii ajnabi joogay NGO UN jinni hal maalin madaxweynahoodu intuu soo kacay wuxuu dhahay dalka iga baxa one day wuxuu dalka wada saaray kulligood ilaa halkaas gaadhay soo qaraska tuur maaha waa qaraska tuur haddaan saas la yeelin oo aan mararka qaarkood qaraaraad adag la qaadan oo uusan qofka waddankaas hoggaanka uusan qaadanin waddanku halkaa ma dhaafaayo Liberia aad waddan kasta tag go to anywhere oo inagoo kale oo soo martay oo burburtay oo deedna soo kabatay dad baa qarka iska tuuray waana leaderska leader fulay ah oo aan tallaabo qaadi karin oo ama kursiga u cabsan ama wax kala haysto dalkan kama bixin karo mushkiladda kama bixin karo sidaa darteed kulligeen Soomaali baan nahay waagi hore waxa la dhihi jiray qarka iska tuur laakiin siyaasiyiintu kuma jiraan aad bay u cabsadaan siyaasiyiintu waxaan anaga balan ah waa istuuraynaa webiga soo mara annaga isku tuuraynaa annagana fiirsada haddaan ku dhex dhacnana waxaa waaye maxaan ku dhahaa buundooyinka jilib korkeeda naga firfiriya meesha webiga shabeelle ku faafo dee haddii kalena waxaa waaye soo mara meeshaas ay si nabadgelyaad ku soo maraysaan si nabadgelyaan ku maraynaa waynu soconaynaa dadkeenuna isla socon waana la walaaloobi midka maanta waxoogaa ay la qumanayn berri bay la qumanaan doontaa maxaa la dhahaa aji faldhiban lama tus marka maanta waxaa laga yaabaa inay la yar fool xun tahay laakiin berri way la qurux badnaan doontaa berri baa la wada imaan doonaa marka meel ma kala aadayno dadkeenuna waa isla soconayaa laakiin waxaad ogaateen resistancygu wayna fiican tahay dooddu inay bilaabato dooddu inay dadku wax ay dhaliilaan ay dhahaan wasaan waa laga fiican yahay oo sax ma aha oo ay dood bilaabato oo debate bilowdo dalkan wada hurda ee jiifa waa in la kiciyo oo la doodo oo bulshadu doodo oo wax laga dooda la helo
oo agenda national oo laga doodo inuu jiro waay laakiin meel iska aamusan oo shib ah waxba kama soo baxaan marka waxaan leeyahay hala dul qaato hala doodo wax kastoon samayno waxaan ku fiicannahay check and balance institutions aan leenahay marka waana laga dambeeyaa waa la sii mari doonaa waxaan nidhi qaar baa dhihi doonaa waxaan ka gooya waxaan ku daraa wax fiicanaa laga soo saari doonaa marka dambe marka cabsi ma jirto don't worry waxaa waaye dadka la cabsiinayo iyo intaa laga dhacayaa iyo balaaya dhacaysa afgembiga jira iyo waxaa jira maxay ahayd kacaankii golihii sareena waa sheegay kacaankaas anaga noocaas ma nihin kacaanka military ma nihin laakiin kacaankaas dadka meel doog la xaggaas ka arka laakiin khatar yar ay ka sokaysa raba inuu isku turaan meeshaasaan u soconnaa kulligeenna waan wada diyaar garowno aad iyo aad baad u mahadsantihiin waana salaamayaa shirkuna waa idin tiraya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu